السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaleyga qaaliga anigu waa walaashiina kaltuuma cooking waan idin salaamay meel kastoo adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga gacmo furan kusoo dhawaada walaalaheena hore walaalaheena cusub kuligiina soo dhawaada walaaleyga qaaliga maanta waxaan wadaa hilib ari waaye saana uu ku go'san yahay asoo saana soo gatay xawaajigiisa uu marsan yahay wixiisa dhan kumbalad uu marsan yahay marka waxaan rabaa baabrika bisla inaan ku daro hilibka fudeed waaye markaad sameysanaysid biyana ku karisid ma ahan nuxurkiisna ka dishid waxaa fiican hilibka gareela ahaan ama foornadu ku fiican yahay badanaa saxankan waxaan kusoo diyaarsaday 3 xabo bataati oo qaabkan ugu goosan yahay sida jibiska kaleeto waaye toon waaye 3 xabo waaye aan soo tumay barbarooni waaye jeex waaye qaabkan soo gogooyo intana barbarooni guduud ku haystaa waa kaasa isku qaabkii ugu goosan yahay inta waxaan ku haystaa basal waaye basal caleen waaye 3 xabo waaye oo yaryariis ah liin dhanaan jeex waaye iyo waxaan kale oo baahan hal xabo yaanyo inta waxaan ku haystaa subag waaye subagaana kan bariiska loo talagalay waaye intana waxaan ku haystaa waxa waa baabrika waaye barbarooni oo qallasan waaye oo shiidan hadda waxaan u baahanahay kulligood inaan isku wada qaso hadda waxaan rabaa inaan ku daro hal qaando oo baabrika ah qaandadeedna waxaa waaye qaandada oo cuntada lagu cuno tan yariista waa maanta weynta mooti subagan waa kana gobolkana ka goosanayaa hilibda sameynaysid subag u isticmaal maxaa yeelay aad u macaanka ka dhigaa jileeco ka dhigaa kaaliska arag caraftiisa ma malaysan kartid hadaa subag garan saliida u bedelanaysaa subaga marka aad uma dhilaalsano asigoo sidii oo talaajad ugu soo bixiyay 15 daqiiqo bisoo banaanka yaale subaga waxaa fiican hal saac camal banaanka inuu yaalo markaas camal waxaa waaye ma ku dhibaayabo isla markaa isku qasmaa markuu kastoo yar laakiin soo 15 daqiiqo camal la yaalo waxa waaye iyo ma qabsanayo hilibka iyo bataatiga iyo kulli ma qabsanayo hadda diyaar u yahay saxankeygina waa kana marka daarta ay saxan haysta ku samaysan kartaa hadaad shabaqa saarane inkastoo dhacaankaas oo ka baxay faa'iido ma lahan markasto oo aad samaysanaysid hilib foorno waxaa fiican qudaarta hoosna u dhigtid maxaa yeelay bataatigan yariis waaye koraas oo marsiinay asla madoow ka naqanaabo bataati shaam saaraysid gugubo naqanaa marka waxaa fiican bataatiga hoos inaad iskaga dhigtid wixii qudaarba hoos u dhig hilibka asiga waqti u baahan asla kor saar markastana inaa isha ku ilaalisid fiican foornada markaa gelisid kontarool ku sameey
waxaa waa hilibka dadku way kala jecel yihiin. qof jikinkuu jecel yahay, qof hilibkuu jecel yahay, qof malaayga uu jecel yahay. marka waxaa waaye hilibkana joogtada badan loo cunaa faa'iido ma laha. waxaa ka fiican malaayga oo kaleeto. qofka malaayga badsadaa fiican ama jikinka oo kaleeto. waa kaasaa. hilibkeena diyaar oo noo yahay. hadda waxaan u baahanahay foornada inaan geeyo. foornadu way ii shidan tahay 250 ay ii joogtaa. waxaa rabaa inaan kusoo dubo 1:20 ilaa 1:10. markaan soo bixiyo aa arkeenaa insha allah sideena noqotay. hilibkeena waa kana saana noo soo noqday 1:20 daqiiqo kadib. aad uu kulul yahay markuu foornada laga soo bixiyo. marka wax iskaga qabso gacmaha ka gubin. waxaan soo diyaarsaday jijir iyo yaanyo iyo liimo. ana waxaa rabaa inaan ku cuno rooti. hadaarta adag baasto bariis wixii dooqaaga ku cun. fargeedada ku goyn kartaa mindi ma loo baahno. mindina ma isku kalifaysid. waa kaas. haddaa jeceshahay hilibka jilaac zaa'idka ah alyuumka bisa ku xiranaysaa. huurkaas wuxuu noqonaa uu kala dhacaa laftiisaba kor uma soo qaadi kartid. marka waa kaasahay aan hilibka moskotan jeclahay. laakiin hilibka hadda biseel buu waaye. hilibka waxa fitamiin uu leeyahay markuu hilibka ciiriin xigeen uu yahay. biseelka zaa'idka ma fiicno. laakiin anaga dadkeena inta badan waxaa jecelnahay hilibka biseelka ah. hilibkan kaalis kaarak waaye faraha isgoosanaysaan ku macaankiis maasha allah. kuley ana aad u ii cajibiyey. marka adna wuu ku cajibin doonaa soo borobeeya. walaalahayga qaaliga fiidiyowga intaas ku egyahay. daawashada fiidiyowga ku mahadsantihiin. assalaamu calaykum.